استاج انت هنا وهي شيء برادق محايه انا وها عسكري على السنه والجماعه Soomaalida dhamaan iyo inta rasuulka rumayda ahlu sunna wal jamaa kaligeena ma ahide ujeedada cadde على السنه والجماعه انتو قفيا انا وهي gaar ahaan garabka hubaysan على السنه والجماعه عسكري ka tirsan adinku maxaa ahaydeen anaga waxaan ahayn ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u xil saaranahay amniga dalka waxaan gudanaynaa waajibaadkii ay dawladdu noo idmatay oo qaranka aan u haynay adiga qori boosh waxa wadataa qorgaya booshkan anu waxaan wataa inaan kula diriro marka koowaad inaan kula diriro khawaarijta ku difaaca diinta dalka iyo dadka khawaarijta dalka uga horeeyo ugu dambeeyna naftayda aan ku difaacan wataa difaaca diinta dalka iyo dadka waxay dawladdu u xil saaratay ciidan iyadana mas'uul ka ah waajibkaasna anaga u xil saaran insha Allah dawladdeedu waxay mar dhow ku hanweyn tahay ama rajaynaysaa inay soo afjari doonto dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ee al-shabaab aniga war mega maqlaysaa waa gartay tini iyo maalinkii 10 sano aan jiro 10 sano haye waxaan maqlaayay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada amisom oo iskaashanaya waxay soo afjarayaan kooxaha argagixisada ee rabaan in la diriraan mar dhowna waddanka ay horeyhayaan amisomna waa bixi aan maqlayay حتى BBC دان كده يصير BBC واقرت ما مغلى واقرت أنا يرى حتى BBC ده كده يصير أرجع هي هدف كوين قرية باشك أول تا هو يسنتها هي ناشر هدف كوين أنا هو يسنها وحاوي كوهان عن قواريت ونقانو أذكرنا أرجع حساب الترادان ذلك إن لقى حرية هدف إنه وين سوى لك وصفي عن وحنا كوباقيا أنا كوباقيا إن هذانا على السنة والجماعة إذا مدة دولة فدرالك Soomaaliya ciidamada ahlu sunna ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa shacabka hubaysan oo deegaanka hubaysan inay iskaashadaan israacaan qawaarijta wadanka aan ka horeyno waxa weeye qawaarijta gobol kasta iyo meel kasta ay joogan qawaarijta iyo god kasta loogu galo waxa weeye dagaalka laga soo bilaabo kuwa daacish hatta waa ku jirta argagixisada qolyaha waa ku jirta laga soo bilaabo buuraha galgala laga soo bilaabo ilaa gobolka Gedo argagixiso qof argagixisa in laga waayo hadafkanaga iyo mataqaan qadiidanada iyo meesha aan u socono iyo fikirkanaga intaas weeye saasan kula ku soo dhaw waa fiican tahay hadafkiinu iyo dawladda hadafkeedu aad isugu dhow yahay hadafka dawladda federaalka ay juhdiga badan u gelinayso ay juhdiga badan u bixinayso intaas oo ciidana u tababartay u diyaarsay hadafkaasi waa aad iskaga dhownahay laakiin waxaan ka rabnaa waxa jiro nidaam iyo process loo maray leedahay waxaan ka rabnaa hadafkaagu aad u fiican yahay in aad ka mid noqoto systemka dawladda lagu sharciyeeyo lagu daro systemka aad la mid noqoto askariga garabkayga taagan si afkaartaada iyo riyooyinkaaga u rumaysid dawladda iyo ahlu sunna waa isku fikir laakiin waxa la rabaa in sharci loo yeelo askari sharciyeysan adiga iyo inta ka dambaysa laga dhigo si guusha aad ku taamaysid aad u gaartid waxaan rabnaa inaan kugu soo dhaweyno systemkan lagu daro askari qaran laga dhigo lagu qarameeyo waxaan kuu sheegayaa horta annaga hadiiba kooxaha qawaarijta dalka iyo dadka iyo deegaanka hadii laga horeeyo oo kooxaha qawaarijta ay iska tagaan annagu ahlu sunna wal jamaa hadaan nahay waxaan badoonaynaa oon rabnaa inaan isaga laabanaba dugsidanadii iyo quraankanada inaan ilmaha quraanka barno dugsidii ku laabanno waxaan rabaa wadanka inaan ku joogno si nabada wadanka qawaarij la'aana aan laga aqoon qawaarij laga aqoon argagixisada laga aqoon waxa weeye dawladuna markaas ay amniga dalka iyo iyadoo ay dawlad u noqoto difaacdo deegaanka iyo amnigeeda iyo dawladda aan uga dambayno amniga iyo mataqaanaa difaaca wadanka dawladda aan uga dambayno anaguna wixii mataqaanaa culimada lagu yaqaanay iyo cilmigii iyo diintii iyo wixii aan faafin jirnay sida aan u faafino argagixisana wadanka laga saaro intaas weeye hadafkanaga waxaan shisheeyana ay naga baxaan wadanka dhanba waxa weeye waxa iska noqonaya barwaaqo nasriga iyo nasteexada ilaa iska soo dagaysa waxa weeye qax dambe iyo qaxooti dambe la arki maayo abaar dambe la arki maayo insha Allah sida Ilaahay ka rajeeyay insha Allah waxaan ka rabnaa inaan ku saan hore kugu sheegay inaan system kugu soo darno ku sharciyeyno oo ku sameeyno sharcigii ku ogolaan lahaa inaad hub ku wadato oo hawshaasna ku fuliso sharcigaas ku daraynaa arinta kalena hadii aad u laabanaysid diintii iyo markii barwaaqada ay dhacdo sida aad sheegtay oo wadanku khabaariirta nimanka u taqaaniin laga xoreeyo argagixisada ula jeedaa dugsiyadii iyo hawl kale wadanku u baahan yahay
marka waa ku sharciyeynayna soo dhawow gacan furan ugu soo dhawow ما له تاني واو